urka ku qaadistaadii oogada hooyo urka ku qaadistaadii oogada hooyo urka ku qaadistaadii oogada hooyo ku xambaaristaadii urka ku qaadistaadii oogada hooyo ku xambaaristaadii awaamintii oydaagi macaana noloshaad mulku leedahay urka ku qaadistaadii oogada hooyo ku السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله xaflad ay ku qalin bedelaneysay ardayda fasalka 8aad dufcadiisa koowaad ee iskuulka Daariq oo lagu qabtay hoolka weyn ee iskuulka. xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday bahda waxbarashada, maamulayaal iskuul, mas'uuliyiin kale, waalidiin iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa hadalka qaatay mid ka mid ah waalidiinta muddada dheer ku xirnaa iskuulka, isagoona mahadcelin iyo dardaaran u soo jeediyay maamulka iyo ardayda iskuulka Daariq. إلهي هلا عمسو معلمين توحي إلين هايان أوغادا قد قال هو كما هاي الله هاي كما هاي لما لا وساس سؤال محمد قال جسار بريت تروح جسار لجنة ما قال لي هذا قلت جسار هو أبان قال جنة ما قال لي رسيس أنا خير وما مركا وحائد الشيء وأسكسو قابنا عليها لذلك يجود العلماء أي بحنايان يوم معلمين أي بحنايان ماموريالكم وحاضر رباء إلى القواتان والقبطان معلمو خير الله كسيو أبال كذا مقولي كرمو معلمو أستاذو معلمين المرمى الدرجة ويقول الله رب أرضي على عن ساس أبوهاش خلاف أوقات أبو سبب sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiin ka socday bahda waxbarashada iyagoona bogaadiyay ardayda halganka dheer ugu jira in ay wax bartaan. waxaa mahadsan kow iyo labo Allah ka sakadiis maamulka iyo macallimiinta dadaal dheer ka gadaal ardayda ay ku guuleysteen kaalmaha ugu horeeya A iyo B kulli haday ardayda u gashay gobolka imtixaankii gobolka Banaadir ay dhici lahaayeen intaan ma imaateen way kala carar lahaayeen nin walbana wuxuu ka dhuuma lahaa inuu yiraahdo waxaan dhigtaa dugsiga Daariq hadda waalid walbo iyo arday walbo wuxuu ku faanayaa waxaan dhigtaa dugsiga Daariq oo ay ardaydiisu wada baaseen waxaa jirta aan ogahay anigu iskoolo kala bar ku dhawaad ay dhaceen ardaydii xalay baa waxaa la ii sheegay iskuul konton arday ka dhacday ka warrama habeen ka horreeyay waxaa la ii sheegay 20 dhowr arday iskuul ka dhacday aad baan ugu xumahay waxaan ugu faraxsanahay in maxaan ku yiraahdaa la wada baaso waana wax la rabo haddaan la dhicinna baastaanku macno ma leh haddii hebelna waa baasay hebelna waa dhacay aan la dhehaynin baastaanku macno ma leh hambali waxa uu dirayaa dhammaan ardayda 8aadka ee sanadkii ugu horeeyay ee galay imtixaanka dawladda haddana keeneen kaalmo waaweyn oo la soo ooyi karin marka waxaan codsanayaa ardaydaas oo kaalmaha wada gashay wada keentay in hal mar lagu sabciyo codsigaas hal mar waay marka labaad waxaa la hadlayaa ardaydii soo guuleysatay fasalka foomanka sanadkan waxbarashada jaranjaradeeda koowaad hadda soo fuush 4 sano oo hor la ku sugay saawad ognaanana dadka inta badan waxay ku dhahayaan 4 sano meesha kuma taalo 4 sano ogaa waalidkaaga wax walba kula garab taagan ha yaraadaan ha weynaadaan waalidka ku garab taagan lacagta laga dhiiba iskuulkane ayaga ka bixina taas micnaheedu markii waxay tahay ii cun ii cad wax ii baro
waxaan aad ugu mahadbalyeynaa ama salaan u diray ardayda sideedaadka ka soo gudubtay oo u gudbi rabto form 1ka waxaan idin leeyahay waxbarasho haddii laga hadlo ma ahan mid fudud ma ahan waa wado qarjeex ah waa wado u baahan dulqaad waa wado u baahan rafaad waa wado u baahan dhib iyo rafaad adii bas waxa laga yaabaa inaad u jeedid maamulkaaga sida cali minis ustaad sida cali ma fiirisay screen ma saartay muuqaalkiisa ma fiirisay dhibka uu soo maray qofka aad arkaysa maanta aad leedahay hebel aha ilaahay hebel oo kale ilaahay uga dhig minis ma iskaga imaanin waxa laga yaabaa habeeno badan saliidiisa inuu gubay saliidda waxa laga wadaa habeeno badan inuu dhafray waxa laga yaabaa maalmo badan inuu baahi fara badan uu soo arkay waxa laga yaabaa maalmo badan inuu rafaad soo arkay maantana waa kan alxamdulillah waa everyone waa بس مركا إن شاء الله وحايدين رجينا إن شاء الله إن إذا كان سدا سوكلا سكسي مداينا نقطان إن شاء الله تعالى سدا وذوقنا هاي دلك وحى كالصعودة هرمر فرق بدن أو كمدة دنك يوح برشدة طبعا وحال ربا مركا مدرسة طارق إنه كمد نقضة اسكولة وترتمي دونان إن أي كلمة هوري كي جلان قبل كبنادر وحال رجينا يا inaad ka qayb qaadataan horumarka ka socda dalka waayo waxaad tihiin wixii berito marka insha Allah anigoo soo koob waqtiga waxaan leeyahay guuleysta yeesti kale waxa hadalka qaatay ardayda iskuulka Daariq ayagoona xafladda ku soo bandhigay waxyaabihii ay ku soo barteen iskuulka Daariq assalaamu alayka ya habibi ya nabi Allah السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رئيسك مدينة راحي وننك حراك ووارد رئيسك مدينة ورسولك إلهي ركيسيو ردد كرياق بيروحنا كالقعي قراقي محمد هويجي أدونكاي هويجي أدونكاي نولشا هاي يدلقو حرورا هافو بين هويو ayadaha quraankiyo midaan ducadiyo eebban ku baryaaye ha afuubin hooyo urka ku qaadistaadii oogada hooyo urka ku qaadistaadii oogada hooyo urka ku qaadistaadii oogada hooyo ku xambaaristaadii urka ku qaadistaadii oogada hooyo ku xambaaristaadii awaamintii oydaagi macaana noloshaad mulku leedahay urka ku qaadistaadii oogada hooyo ugu dambeyn maamulaha iskuulka Daariq Ustaad Sayid Cali ayaa soo gabagabeeyay xafladda qalin bedelashada dufcada koowaad ee fasalka 8aad wuxuuna shahaadooyin gudoonsiiyay ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaankii uu qaaday iskuulka iyo waalidiintii ku xidhnaa iskuulka Daariq shaqada ka soo qayb gashay xafladda dufcada koowaad ee 8aadka iyo waalidiinta iyo ardayda dhamaan aad u maasantiin sida waqtiga nagu soo horteen waqtigu aad u yar insha Allah waxa soo koobi doona sanadkii maadaama uu inoo dhamaaday waxyaabihii iskuulka qabsoomay sanadkii koowaad dufcadii koowaad maanta u jeedin aqal jibintooda dhigayno waxaan bilaabnay sanad dugsiyeedkii 2022 waxaan lagu bilaabay ardaydan u jeedin 8 qof ayaa ahaa dufcadii koowaad ee iskuulka waxaana koow ahaa gabadha lagu magacaabo Zainab oo iskuulka lagu aasaasay sanadkii koowaad 8aadka waxay ku guuleysteen sanadkii koobka ugu horeeyay iskuulka la qabtay ayay ku guuleysteen Mawlid Axmed Nuur raadiyaha TV-ga Danan iskuulka Daariq